sheekh xaas ayaan guursaday kadib 7 bilood iyo bar ayay waxay dhashay cunugaas shaki ayaa iga galay maxaa sameeyaa shakigaasi meesha kuma jiro waa qalad ilma aad dhashay weeye inaad ka shakidana waa qalad maxaa yeelay ilmuhu hadduu kulankii ninka iyo haweenaydu ay kulmeen 6 bilood hadday ka soo wareegto 6 bilood iyo wax ka badan uu ku dhasho waa ilmo sharci ah 6 bilood wax ka yar hadduu ku dhasho ilmahaasi ninkaasi ma dhalin arrinkaana waxay dhacday xilligii khulafaa ur-raashidiin cumar radiyallahu ta'ala anhu wa Uthman ibn Affan oo haweenay 6 bilood ilmo ku dhashay baa loo keenay kadibna waxay damceen in ay jeedlaan ama rajmiyaan oo xadda ka oofiyaan xaddu zina Abdullah ibn Abbas baa marka wuxuu ku yiri arrinkaas ma lihidin saxna ma ilmuhuna 6 bilood wuu ku dhalan karaa quraankaana ku tusaya buu yiri markaasuu wuxuu kala soo baxay xukumka ah inuu ilmuhu 6 bilood ku dhalan karo 2 aayadood oo quraanka kamid oo markii la isu geeyo xukumka faa'iideynaya jira aayada hore waa mid Alla tabaaraka wa ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran ilmaha inta uurka lagu sido iyo inta uu naaska nuugayo 30 bilood bay isku tahay saasay aayadu tiri 30 bilood waa sanad iyo sanad iyo 6 bilood waxaan dhihi jiraa 2 sano 2 sano iyo 6 bilood waay soo saas ma haddana waxaa laga hadlay muddada uu naaska nuugayo والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين dumarka waalidka waxay ilmaha nuujiyaan 2 sano oo kaamil ah cidii rabta inay nuugmada dhamaystirto marka 2 sano waa nuugmadii 30 sanana maxaa sheegay waa nuugmadii iyo maxay iyo inta uurka lagu siday oo wada socota 30 bilood isku ah markaad ka goyso 2 sano oo nuugmadii maxaa soo hadhay 6 bilood waa 6 bilood uurka marka ilaa muddadii uurka lagu siday iyo muddadii nuugahayay baa isku 30 bilood ah haddana muddadii uurka waxa la xadiday haddana muddadii nuugayo 2 sano ah uurkii maxaa u soo hadhay marka uurkii 6 bilood baa u soo hadhay labada aayado marka la isu geeyo iyo Abdullah ibn Abbas kala soo baxay in uu uurku muddada ugu yar ee uu ilmo ku dhalan karo inay tahay 6 bilood fuqahadu waxay yiraahdaan iyo 2 laxdo 2 ilbiriqsi sidaasayna jumhuur culama qabaan hadduu marka 6 bilood iyo wixii ka badan ilmuhu ku dhasho waa ilmahaagii inaad ka shakidana waa qalad inaad tuhuntana waa khalad firaashkaaga iyo gobashaadii buu ku dhashay wuuna ka suurooba oo muddada iyo wixii ka badan ilmuhu waa ku dhalan kara 7 bilood baad ka hadlaysaa marka 7 bilood iyo ka badan baad ka hadlaysaa marka shakigaasi meesha kuma jiro ilmahaagu waa ilmahaagii waaye adaa dhalay gabadhana ha tuhmin ilmahaagana hayso wallahu a'lam